maanta waxaan la hadlayaa xildhibaanada xashiishka u badan anagu meesha geysanay ee gudaafada mirmir marka laga reebo waryaanahayn ummadda marka adduunyada dee qof idinka mada arrin soo food saarto ama aamusni baa lagu codeeyaa fartu baa loo taagaa ama aamusni ba gacantaada dhulka loo dhigaa sidii qaymartay meel walba ka qaylaya waa maxay waxaan meeshaan ku xiraysanay gudaafadii kaalay sharcigu hadduu midkiin soo food saaro dee inta maxkamadda lagu geynay ka iskugu cadaanaya eedaysanaatay haddii lagugu waayana maca salaama midda kale waxaan weydiinayaa raggan markii hore kulmiye meedhanaha ee imikana shaarka noo bedeshay xisbiyada kala jooga shalay oo dhan waraaqda hayayo maxaad u oran weyda hadduu idinka mid yahay markuu hadallada xanaftale ku hadlayay lafta cadaynaya maxaad u oran weydeen war aniga arrintaa naguma matalo war arrintaa kugulama jirno war afkaagan xanaftale jooji waxa lagu haystaa xildhibaanka maaha SNM jabhadaha dunida soo marin bay kamid tahay halka ay naga dhigayada hadaa doonto reerba ka dhigo halka iska dhig waxa lagu haystaa wuxuu yiri SNM deegaanada ka soo jeedo daalimiin baa looga yaqaan waxaan ku yiraahdaa awdal waa xashki mayada cid badaalin u taqaana awdal waa xashki cid badaalin uma taqaano soomad garanin binaadku haduu bari istilina waa la heshiiyay halkaas lagu ilooba halka bugta isaga waa halkee afka qoyan miyaa la iska hadlaan waxaan qofka 24 saacadood maxamed difaacda barnaamijyada badan oo ku difaacayana waad aragtay laakiin qofku markuu noqdo kamarad la ciyaar uu afkii qoyan iska hadlo oo hal lagu daawado hal lagu mashquulsan yahay ee ummadana inuu dumiyo u doonayo aade maxaan ku yiraahdaa waa laga hadlayaa waa la xirayaa wala aniga asal la xirayaa qof doodi karana ma jiro war aniga hadallada qaar marka ku hadla xisaabtamo xabsooda oo iraado wallahi hadalka maanta aad waa kay isagu xitaa raali gelin kama bixinayo hadalkii ka qabow kama daba dirayo waa adiga hal lagu daawado xildhibaanada iyo ummadda dhulka joogta kama duwana gafadu galo wala la xisaabtamaya waxa laga xisaabtamaya wuxuu yiri aniga had in la xiro waxa loo doonayaa buu yiri in jeelka la igu qaarajiyo waniyo maxamed siyaad barra isawa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maxad ragga ka qiimaha badan maxaa loo qaarajin way bal wuxuu ku hadlayay wuxuu yiri mar hore aniga madaxduba waxa ii raadisaa buu yiri aniga meel taagan inay toogtaan bal waxyaabuhu ummadda dhagaha ugu ridayo ee u barayeega war waxaas ma wax lagu hadlaa darka reer awdal waa dad sarfan waa dad nadiifa kanoo kale inuu ka soo baxay runtii may wanaagsaneyn awdal waligeed ba nin waalani kama soo bixin waa maxay ninka waalana awdal ka soo baxay saliga nabiga laakiin way fahmeen waxaan ku faraxsanahay in reer awdal fahmeen aniga qofkii qabyaaladii arkayo inka dhagaha iga soo dhigtun baan ku halkan ku matag wariyaahe wali halkii laga soo doortay ee ruqi islaantii soo doortay soo codaysay wali daawihii qiiqi bay ku dibtaa gadbad xilooga mu iibin xabad solar oo mu geynin oo oran bar adigu baleen maanta solar ka yar madowga ka shita Somaydaan garanin gobolkii awdal ee u bacadka u soo dareeriyay ciroole iyo caruurba u soo dareeriyay ayuu boodbood ku bilaabay boodbood bedbed maxamuud xaashi cabdi salaama muuse biixi rida ciro doorta muxuu geeyay maanta qof reer awdal oo damiir loo arrintiisa ka hadlaysa ma jirto anu ma sheegin qof iska fudud iyo qof deganaansho ku gala laakiin awdal intuu qalbigoodii wareeriyuu yiri waa la israayaa waa la gareynay war cid qof waalan uma joogtisa baan ku yiri maxamed oo markaad imka soo baxda sida kaba hayla dulmar inta kugu fikirka ah ee hayb walbalina aniga kaba hayla dulmarto sidan is xildhibaan adduunyada ku socdo maaha xildhibaanka xeer baa qabta حتى حسانة لقى قاضي ولا قضيات ولا قصارة برلمان هذا أدونك برلمان كابدنا سدت الدبان بوك صاري ما حنكون هذا دني درادي اللي قصاري مركب مدحوينها في كذا جواي أقول مدحوينها قبل مرة والبوترنيسا سمعت كرني إن الله أنت الصومالي لان عرب كلا دعي سئين الدنيا ورقدالكوا هالكوا كقلدين يبى لقى كراها الله يرضى وحسن وبهني وحسن كنا وحسن نجحهم بالله هذا شعبك واكي ما شعب كانت قيبسات قبيلات كو قيبسay ninkaaga dhamaay moodayna inuu Soomaaliland hadhow hogaami doono madaxweyne uu noqon doono aan lahayn ma ninkaaga idin reerkayga baan cararay ee reerkii la dhex tagay saddex nin oo isaaqa kala doorta bila adab hada islaan iyo inan wixii halka ka soo jawaabaya dhabarkayga dhagayguba waa u diyaar xaq darro ku difaacaya محمد وإنن كيجي إنن بلا أدب أو بلا أخلاق أو حلوان قلمن أو أقل تذكر دلالين تسوق التاجر إن حولها جيس كراعة يك مرت رجع الدنيا يدعي حولها الله صار بابور تمرك حولها كذا اللي قالوا فيني جيس كراعة محمد تاسوكو ونكسني نو برلمان وحباو قام بلا ننعاد فضايسون سرت شوقون أو فير ولا دوبن إسو كان صار إذن وحن كل بلا أدب أنت الدفاع يسه بل إله بانكو قدر شعب الله دراج
balaag maxamuud xaashi cabdi balaag cirro dhammaantood halkay ka soo dareereen war halkay ka soo darteen cirro wuxuu ahaa baan ku idhu cid cabdilaahi dheer wuxuu ahaa kulmiye dhammaan maxaan ku radaa ninka la yidhaahdo maxamuud xaashi cabdi kulmiye waar maxaa maxamuud xaashi cabdi oo ilaah baan kugu dhaarshay markaad ahayd baan ku idhi wasiirka duulistii hawada eed kii madaxtooyada ahayd ee xoolihii siiraanya aad sidaa u muudsateen adiga iyo xirsi xoolihii siiraanya saa u muudsateen ee wadooyinkii ceerigaaba aan laydinkula xisaabtamin maxaad kolkaasi waryaa waxaa soo meedhan baanu qarinaynaa niyo weydeen eed maanta tirahdaan danta shacabka iyo wixiinaba wada kudabaan idin idhi waxaan bila akhlaaqdii maxay ahaayeen nayaala inta xal ku dayi lahayn oo odhan lahaayeen war maxamed waa gardaran yahay war waa xuu yahay war dawladuna waxaasay ku qaldan tahay ama waxaasay ku toosan tahay ee qolada sharci la mari lahaa war qof walba markuu dibooriya bartan yaan la wada joogin baan ku idhi qof walba keligiisa daal anya ha la yidhaahdo haddaan sharciga la ilaalinaynin oon qofkii la qaban karin oon la waanin karin ood adigu ku raaxaysanayso wuxuu doono markuu shubayo ee wadanka xarafka ee jabina war arday iyo dhalinyaro wadanka joogtade oo qof walba markuu sidoo doono hadla bari ka xafidaysa oo iyaguna wadada maraya ninka aan inta dhawreynin ee doonayo wadankan inuu dumo adaa dumi doono Soomaad garan qofka qaldan yaan la qaban hadaad leedahayna adiga qabsoomi doona adiga qudhaada qabsoomi doonta shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay war hadaad dantiina garanaysaan da qofka qaldan anigana ha ahaatee suuqa u oranina Soomaydaan garan wadanku haduba qofka jecel ee dadka isku lisayeelay dadka reer awdal waba xashkiiba maxay daalimiin dad warku waba iyaga nabi maxamed wuxuu yiine oo reer makadoor miidha ba ka buuxi war waxaan bila akhlaaqda waalan awdal yaa ka soo saaray wax waalan weeyaan wax hagaagsan maaye ish annaga tagni waalan ba meesha awdal ama ninkan u dabaal degayaan la madaxweynuhu noqon madaxweynaad sheegtay xitaa kariyoon la noqon mays war naga tagorado 8 sano 5 sano halka joogo xitaa adaab iyo akhlaaq ku joogi karilay ummadii uu soo dooratay buu adaab iyo akhlaaq ugu konton xildhibaan baa awdal ka soo baxo wax sidana ma naan arag imikana way joogaan oo wax sidana ma naan arag imikana waxaad keentay in dadkii isku disho aanu halkii doontaba laga soo diray daa wax reebo awdal maxaan ku raahday waxumatiida awdal ma dhex geysan 3 nin oo isku reero ma tirada kala doortay naga tago